marka inta shirkiyada jiray wuxuu maanta ku saabsan yahay hawaalada dahabshiil wadanka Soomaaliland dahabshiil baa ku taala meel kasta lacag waa dad lagu saxawlaa anagu dahabshiil maanta waxaan ka tabanaynaa Edwin ee shirkada ayaan ka tabanaynaa eedaas waa dawladda Soomaaliland meel kasta wax bay dhigeen in dadku sidoo hore maaha oo dadku wada soo ogyahay meesha maanta la maro caawa wada dawlada marka anagoo ah waxaad iyo aqoonyahankii wada gobolka Awdal marka waxa shirkadda ku codsanayna say jaamacadaha barigo dhan dhagaxaanta u dhigtay wax ugu qabanayso anaga gobolkayga laba jaamacad ku yaala jaamacadii ugu weynay East Africa ayaa ku taala Abuja وليد أنا وحدة ستيم أنا وحدة سوا جعلنا جامعة كلا university يلا جامعة عند كفر عندنا بالإنسان كي يجوا الدراسي ولا بس يا شغلة contribution كلا قطعي مركوا حالنا تعدى سنة وحدة ستو والمدرسة أول وحدة صعدة دريقيو فرقدنا وين بقى صعدة مركوا حالنا كذا قاعدته ما دام هو عكس أو بدل dahabshiil oo soo dhigo gobolka Awdal dadka loo soo diro qaarbi loo soo diro ardayda jaamacadda loo soo diro dadka kale loo soo diro inay kaalin saddexaad gashay oo dhow yahay waan ugu hambalyeynaa saan wax u gashnay iyadoo wax looga hadlayso waxaan leenahay dahabshiil oo kaalin fiican qodob fara badan inaad loo qabto anaguna waxaan u nahay hadiyad kuwa taageersan shirkadda dahabshiil marka waxaan madaxdeeda ka soo codsanaynaa inaanu saan waxaan ugu sameeyno wax loogu qabto assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan isku nimaynaa anagoo heer badan oo gobolka Awdal dhalanay inaan ka hadalno degdegyada ay wax dhigtay dahabshiil meelo badan oo kamid ah gobolada Soomaaliland sabab gobolkan kaalin weyn ka jira dadka lacagaha loogu soo diro inta badan lama kaalin badan ka qaata saxaabada noqonaya waxa ay shirkadu inay wixii aan gashano ee dadkaygu noogu soo diraan inay iyadoo dib noogu soo celiso si ay noogu soo celiso marka waxaan rajaynaynaa in bas jaamacadaha ay ka dhistay dhulka laboratory ay dhigtay jaamacadahaas oo kale dhagax ay dhigtay iyo galaasida u dhisayso inay jaamacadaha gobolka Awdal laga Soomaaliland ay dhigto haddii wax kale jiraan ay shirkadda madaxdeeda wax ka codsanayna inay noo soo sheegaan oo bal waxay gobolka inta uga qaban waayeen gobolada kale uga qabanayaan gobolka meesha badan baa ka jirta dhinac walba iyadna hadday dhinac walba hadii laga cawdo waa dhib laakiin dhinacaas waxa ka jeedinaa dahabshiil iyo maamuladiisa iyo shaqaysa insha Allah soo wada xisaab badan wax ka qabtaan waxaan dahabshiil aan ugu baqayaa in hadalka aan dhalinyarta aan ka mid kahaan ku adkeynaya dahabshiil bariyootan lama galay inaan leenahay madarata wax noo qabto ama wada wax nagu daranay inaan bariyootan kama galayne wixii aan soo gashanay inaanu ka helayo waajiba lacagna madarata lacag wareegtoon waxna wala gashadaa waxna way ka soo baxaan ولا دليل سبورتي بنقطي ولا دليل بين معذرة ولا ودوين بنقطي ولا جامعين بنقطي وحلا واحد ملك يجي شرطة ما شرط ده برا يوم واحد كده دقيقة سام مدرك تي لا ببي واحد دقيقة سعيد حاسس مين واحد نطها دكتبه لكن قبل كده ناي كان تستحق جرا واحد كشني أنا بدي قالوا مكشني من الهين واحد نسيه من الهين هذا قالوا مكشني قبل كده كان تستحق جرا أمريكا مقيميني أيام ما أنت مدرك تي واحد لو ما قبل واحد لقب تميلك راح لقب هوا قبتها هو وريكتي waxaan gashanaa ka doonaa anagu oo leenahay madaragtay jaamacaduna way badan yihiin waa eelo waa amuud iyo madaragtay iskuuladaba marka waxaan oranaynaa madaragtay dahabshiil waxaan leenahay hadii lagu heeso anagu noon ku geeraaranay in lagu geeraaran bad suuban malaya madaragtay xawaaladuna way badan yihiin inaad dadka ku eegin magaalada way degan yihiin inaad macna qabiil noqotiyo in lagu geeraaro lagu heeso ma meesha heeso ku dhamaatay geeraar ma naga suusan malaya runtii waxaan qabaa فكرة دليرته ما أنت قبضة قبل أوضل وأقولنا هاي إن دابشيل ما أنت واحد international ودون كدن إن كل حفيزيو السؤال شو بنا واحد هاي إن قبل أوضل مركونه فرت على وجود الشري ما يصير أصلا يستي أو صوابه إنه قبل كا صوّن هذا قبل هذا كله مساعد با مسؤول كا إنه صوّن هذا قبل كاسي وعادين مفيدان تن ما أنت وأفر قبل با إن دقح بدقي وحن كحومة هاي أوضاع هاي هو يجي وحبر الشذا إن سوماليا سكدا سومالان أو وقت دمبي إن صاع أساسنتي إن هذا ما أنت وحبر الشذي سجل وبيريجن لها ما أنت قبل لك عليه إن لقب لعبه وحقبضيها كنتي ما هنا يعني ما أنت أيلاد هاي أوضل إن دهبشيل وحنا نصيصه وحكي عن رمنا وحي دهبشيل لك الشذي waayo shirkadu ma aha mas'uuliyaddeedu inay dadka ka shaqaysato waa in bulshada shirkadu ay ka dhex dhisan tahay la ahaado wax isku tiirsan waayo way isku tiirsan yihiin
waxaan leeyahay in war fadhigaas aad maanta samayseen madaxda dahabshiil fadhi ka duwan oo noqdaan hawshaas sida ugu dhaqsiyaha badanna gobolka Awdal in wixii aw lahaa iyo wixii waxqabadkiisii marka la qiimeeyo wixii uu kaalintii uu kaga jiray waxqabadnimo maanta dib ha looga fariisto ha looga fikiro sidii dib isaga loo meelin lahaa hawshiisiina hala galo wayna ahayn de waa hawshii hore ee gobolka Awdal xukuumaddu dabada ay haysatay bay tan noqonaysaa oo alxumo ku sii birtay shacabweynihi Awdal bay noqonaysaa horumaro fara badan oo ka socda haday tahay dekado haday tahay laamiyo haday ay tahay isbitaallo haday tahay iskuulo haday tahay macadiyo waxyaabo fara badan buu gobolkan qabsadaa waxa soo dhan isagu ma ku kaliyooba dadkiisa iyo wax weeyaan inta u dhalatay unba kali ku ah marka munaasabadan maanta halkan isugu nimidaynu kaga hadlano shirkan jaraa'id waxa weeyaan waxaan dhawaan ugu maqaalaa shirkadda dahabshiil oo ah shirkad international inay mashaariic ka fulinayso guud ahaan gobolada dalka oo dhan gaar ahaan gobolada bariga marka tanna waxa weeyaan waa midna taabatay shirkadda dahabshiil oo aan u nahay runtii macaamiil aad iyo aad meel weyn uga yaal oo lacagta iyo waxa weeyaan waxyaabaha la soo diray ee haday dalka dibadiisa tahay iyo gudihiisaba lagu kala dirsanayo ama baankeyga ay tahay aanu isticmaalno shirkadaas waxaan ka filanay inay noqoto shirkad markaa bulshada gobolka Awdal siday ugu hagar baxaysay iyadna ugu hagar baxda si kaalintii maysan buuxin waxaan kaloo ku darayaa shirkadaha gobolka ka jira ma hayaan dahabshiil marka horumarka gobolka laga hadlayo kaalinta ay bulshadu ka qayb qaadanayaan horumarkaas umbay shirkadahaasi ka qayb qaataan ma aha in shirkad la tuhmayo sida inay de wax badan geliso dal marka gobolka amaba meeshii horumar ka socdo inay de la mid noqoto bulshadii marka shirkadda dahabshiilna de runtii waxaan xaqiiqdii aan ka hadlayaa inay noqotay shirkad markaa kaalintii ay bulshadu ku lahayd dee ay garan weydo marka waxaan ugu baaqanaa maamulka iyo waxa weeyaan mulkiilayaasha shirkadda dahabshiil gobolada kale kama duwana waa ka mid uuna la barbarsaman yahay dee sidaa aad wax ugu qabanaysaan inaad wax ugu qabataan iyada inaad markaa de wixii kale option noo bannaan annagu aanu qabanno haddii ay tahay isbitaallo la dhagax dhigayo hadday tahay jaamacado la dhigayo hadday tahay laamiyo laga qayb qaadanayo inaad wax ku darsataan waa idin muhiim idinka keligiinna idinma fiicne idinma anfacayse guud ahaan cidda dee markaa dahabshiil ku xidhan oo dhan bay anfacaysaa gaar ahaanna maalinta aakhiro kollayba way idin anfici doontaa